السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو داودها قايها iyo qiimaha badan oo walaal ama walaashay halkani waa channelka Showr iyo Sheeko hadii ay tahay markii ugu horreysay soo boqoto fadlan subscribe oo na dhiirigeli oo comment iyo lagna nooga bixi barnaamijka aad baad u mahadsan tahay walaal gabadhan imika aad u jeedaan waa hodan waxay ka shaqeynaysaa gurigooda sida caadiyanka ay gabdhuhu u shaqeeyaan kadib waxay aragtay muraayad aad u qurux badan iyadoo ku fakaraysa halkan habartay muraayada maxay u dhigtay kuma fiicna waa inaan halka iyo qolkayga geystaa qolkayga jiifka ayay ku wanaagsan tahay go'aan ay ku gaartay kadibna way geysatay iyadoo laama rabta ayay si kadiisa u simbirraxatay kadibna shay ay waday ayagu wuxuu ku dhaxdhaxay muraayadii halkii oo muraayada ka jabi lahaydna shayga muraayadii uu dhex galayba kadib hodan aad ayay u yaabtay shaygu muraayada wuxuu dhex galay oo jabi laayahay iyadoo yaaban ayay tiri xogaa yara qoosashay maalmaha kamida ayaan ogaan doonaa bay tiri hodan wuxuu sheegan la jabi laayahay kadib ayaa loo yeero leeyir kaale maalmaha kamida islaan ayaa uga yeertay oo jin ah anigu waxaan ahay islaan jin oo meeshan ku nool oo maxaad ka qabataa meeshan halkan ayaan anigu ku go'doonsanahay kuna noolahay adigu haddaynu heshiina ka waran oo aynu saaxiib noqono hodan ayaa tiri oo sideen saaxiib noqonaynaa jin iyo bini'aadam miyaa saaxiibi karaya dhib ma leh taasu dhib ma leh kadib hodan ayaa waxay isku dayday inay shay ku dhex jira muraayada inay ka soo saarto kadib shaygiina wuuba jabayba kadib hooyadeed Caasha Arab dheer ayaa maqashay oo tiri naya hodan maxaad jabisay inaad alaabta jabinayso oo meelina carraweelo yahay ayaa la yiri kadib way yaabtay iyadoo yaaban ayay tiri islaantii kaalay dad hooyada ka cabsanayso soo dhexgal muraayadan anaa ku badbaadinayay soo gal imika soo gal muraayada waxba ha cabsanin anaa saaxiibta ah kadib hodan waxay si dhaqso u dhex gashay muraayadii saad u jeedaanba wixii jabnaana waxa la yiri iyagana soo gali laftigooda taas oo hodan la yaab kale imika ku sii noqotay hooyadii hodan ayaa soo baxday iyadoo leh aawatii hodan ahayd carraweelada alaabta jabisay waxba meesha way ka weysay hooyadii way yaabtay wax yar ayay yaaban tahay imika iyadoo fakaraysa kadib waxay aragtay jab ka mid ah weelkii jabay carraweeladan inay jabinayso oo marinayay kadib hooyadii way xanaaqday imika hodan way fakaraysaa waxayna baratay sida wax kasta loo nadiifiyo ilaan sixirkii ayaa la baray kadib waxay weydiiday saaxiradii sida shay kala jabay isla sidiisii loogaga dhigo ayay saaxiradii weydiisay waxayna tiri waa wax iska iisiya wax aad u dhib badan ma ahan ayay u sheegtay naagtii muraayada ku dhex jirto jinka ahayd wax dhib badan ma ahan bay tiri sida loo soo celiyo laakiin shaygaasi wuxuu ahaa shay hadiyad ah oo loo keenay walaalka Cumar Murux ayuu ahaa si loo soo celiyo anaa kuu sheegay leeyahay buuga sixirka soo qaad kadibna halkaas ka baro sida shayga restore loogu soo celiyo ama dib oo u soo laabanayo kadib hodan aad ayay u farxday iyadoo baranaysa shaygii kadibna uu isku yimid isaga oo soo laabtay isla markii kadib hodan aad ayay u farxday naagtii jinkayd ayaa u sheegtay hodan inay awood kale jirto taas oo ah dabka bal waxay tiri imika hoo qaad oo dabkan bal isku day inaad meel kasta guriga kamid ah aad ku tuurtid waxbaba kama bacayaan oo guriga dabka waxba ka dhimaayo hodan ayaa qaaday meel kasta guriga ayay ku tuurtay waxbana kamuusa dhimin dabkii aad ay u faraxtay oo waxay tiri alla waa si wanaagsan ayaan u fahmay naagtii ayaa u sheegtay oo tiri bal ka waran haddii aad imika meeshan iska sii joogto maadaama aad tahay mid meesha u bogtay aniguna ayaantan maanan bixine aan balbeledka aado ka waran hodan ayaa tiri aad ayay u wanaagsan tahay aniguna meeshan waaban jeclahay oo waan sii joogi karayaa kadib naagtii jinka ahayd ayaa fakartay oo tiri inay baxdo kadibna waxay ka soo baxdayba muraayadii taas oo adduunyada caadiga imika u soo baxday kadibna waxay bilowday inay dadkii halka ku noolaa ay layso kadibna ay beerahooda iyo waxaasba ay gubto dhammaantoodba kadib dadkii tuulada markay arkeen beerahoodii iyo waxooda la gubay ayay soo baxeen oo isku day in naagtan ay dacweeyaan kadibna waxayba ka dhigtay gebigoodii dhanba
ari carbeed ayay u wada bedeshay gebigoodii oo dhanba kadib ayay ari carbeed ka wada dhigtay dhammaantood way qosashay kadibna aad iyada u faraxsan ayay iska baxday kadib waxa aragtay gabadhii hodan ahayd waxyaalaha ay sameynayso ayay muraayada ay ka dhex aragtay waxayna damacday inay muraayada ay ka dhex baxdo laakiin ma bixi karto sababtoo ah naagtii jinki ahayd ayaaba ku maqan banaanka qof ilaaliya alaabtan ayaana loo baahan yahay sidaa darteed ma bixi karto gabadhan yar oo hodan ah saaxiradii ayay la hadashay waxay tidhi naayahay ma meesha kasoo baxaan doonaya maxaa kuu dhacay saaxiradii ay ugu jawaabtay maya ma dooni anigu meeshaas xunoo juubka inaan tago mar kale anoo xorriyadan haysta kadib hodan aad ayay u yaabtay meeshana kama bixi karto madaxa ayay qabsatay iyadoo aad u yaaban indhahana ka mirigmirigseynaysa oo muraayadan imkaanu kama dhex bixi karaya miyaa kadibna buuggii ayay soo qaadatay kadib markay buuggii soo qaadatay ayay waxay aragtay hooyadeed oo xabad tufaaxa gadanaysa kadibna xabadii tufaaxa dhexdeeda ayay kasoo muuqatay iyadoo u sheegtay hooyo anugu waxaan ku dhex jiraa muraayad naag jinni ah oo ku jiri jirtay ayaana baxday kadibna waxyaalo xunxuna ayay dadka tuulada ku sameynaysaa ee hooyo waxaan kaa codsanayaa inaad adigu tufaaxan qaadatid kadibna aad baxdid dadkaasna meesha aad kasoo badbaadisid ayay u sheegtay hodan hooyadeed kadibna hooyadii ayaa waxay jeceshahay inay baxdo oy dadka soo badbaadiso hooyadii ayaa imika tufaaxii la siiyey taas oo imika doonaysa hooyadu inay baxdo isla markiiba hooyadii way baxday iyadoo raadinaysa naagtii jinka ahayd waxala wixii ay qabato dhan ayay ka daba hadlayday dadkii ayay sidoodii kusoo celisay ay ka dhigtay ariga ayay sidoodii kusoo celisay iyadoo xabadii tufaaxa haysata kadibna waxay raadisay naagtii sixroolka ahayd ama jinniga ahayd taasoo isla markiiba heshayba naagtii ayaa tidhi maxaad u baahan tahay kaale inaad san dadka u kharibto looma baahno oo carrada sidan u hadlaydo naag yahay tallaabo sharci ayaa laga qaadayaa ayay hooyadii hodan ku jawaabtay kadibna naagtii ayaa dhexda qabsatay iyadoo iskibrinaysa kadibna waxay daruur weyn ku dhex xirtayba hodan hooyadeed ayaa ku dhex dooqday daruurtii iyadoo meel uga baxday imikala kadibna waxay la hadashay inanteedii hodan oo u sheegtay inay meesha ay ka saarto ay xanibtay kadibna hodan ayaa ka saartay iyadoo daba cararaysa naagtii sixroolada ahayd daawade subscribe channelka aad u mahadsan.